السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa Hilaac Production. haddii aad ku cusub tahay ku soo biir muuqaalkana like saar mahadsanid. yeygani waxa uu ku noolaa kaymaha. waxaa yaraaday ugaartii uu ugaarsan jiray. maalin maalmaha ka mid ah waxa uu la kulmay ey aad u buuran. waa uuna la yaabay. waxa uu ku yidhi, walaalkay eeyow, maxaa kaa buuran? maxaa kaa xoog badan? ii sheeg waxa aad saan ku noqotay. haa, waa sax walaalkay eeyow, waad noqon kartaa sida aan anigu noqday. maxaa yeelay anigu waxaan haystaa guri aan ku hoydo, waxaana cunaa cunto igu filan. hase yeeshee adiga ma haysatid guri aad ku hooyato. bannaanka ayaad wareegtaa si aad u ugaarsato. saa darteed anigu waan buuranahay, xoogna waan leeyahay. eygii waxa uu yidhi, isoo raac aniga, waxaan ku siin doonaa shaqo ku dhadhansiin doonto nolosha macaankeeda. yeygii waxa uu ku yidhi, oo maxay ay tahay shaqadaasi? maxaana la iga rabaa inaan qabto? eygii waxa uu yidhi, shaqada lagaa rabo aad ayay u fududdahay. waa inaad ka ilaalisaa dayrka mudanahaada, yaanyuuraha dhibka badan, iyo wax walbo oo ka soo dhowaado dayrka. taasi waxaad ku beddelan doontaa cunto aad u macaan iyo hooy aad ku hooyan doonto habeenkii. yeygii waxa uu ku sigtay inuu farxad la ooyo. waxa uuna bilaabay inuu daba socdo saaxiibkii ey. waxa uu daba socdoba saaxiibkii waxa uu arkay wax luqunta uga xiran. waa uu yaabay. waxa uuna weydiiyey, maxay tahay waxaanay luqunta kaaga xiran? eygii waxa uu yidhi, waxba. yeygii waa uu ku celiyey su'aasha. waxa uu yidhi, waxaanay luqunta kaaga xiran maxay tahay saaxiib? eygii waxa uu yidhi, waxaan u malayn inay waxaanay sababeen silsiladdii aan ku xirnaa. markii aan guriga tagano liigu xiri doono. yeygii aad ayuu u naxay. waxa uu yidhi, haddii aad silsilad ku xiran tahay ma tihid mid xor ah. noloshaada dullinimada ah ku noolow, anigana noloshayda xorta ah ayaan ku noolanayaa. yeygii waxa uu ku laabtay halkaa iyo kaynta. sheekada waxaan ka faa'iidaynaa inaysan jirin wax bilaash ah.